السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وانا سلامنا bulshada muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Finland. waxaan ka fadhiya macallimiintii baa ila fadhiya Ustaad Maxamed, Ustaad Axmed iyo Ustaad Suuf baa ila fadhiya. waxaan la socodsiinaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee degan gobolka Awlu in dugsigii dib inoogu furmay falillahi alxamdu wal minna. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahadi weeye. maanta waxaanu diiwaan gelinaynay oo aanu soo dhaweynaynay ardaydii sana dugsiyeedkan cusub ee 2020 ee dugsiga dhiganaysay baan maanta insha Allah ta'ala ugu furmay. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu rajaynaynaa ardayda guul baan ugu rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka u fududeeyo. waalidiintana waxaan leenahay ilmaha quraanka iyo diinka halagula dadaalo sida arrimaha adduunyada iyo iskuulaadka iyo wax loogu dadaalayo. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala khayrka hayna waafajiyo. waan mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. inta dabadeed Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala mahadsan ilaahayadka quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu anfaco. waxaan rabaa insha Allah ta'aala inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gudida waalidiinta si uu uga warbixiyo wixii sanadkii tagay insha Allah ta'aala waalidiintu gudi shirkii ka horeeyay waalidiintu waa shireen bal sidii wax u dhaceen iyo wixii mataqaanaa nasaayixa ay waalidiintu ay u baahan yihiin ardaydu u baahan yihiin macallimiintu u baahan yihiin insha Allah ta'ala shaqabsadan ku soo dhaweynaya wa jazakumullahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار لا waxaan ka barayaa kulankeena inuu ka dhigo kulan khayr qaba isku imaadkeena uu ka dhigo isku imaadin baraka iyo khayr qaba waxaan filayaa anagu haddaan nahay guddida waa taqaanaa ma maranaya dadka loo saaro weeyaan inay hawlaha ka warhayaan mar walba kulamo badan oo qaadanay kadib waxa noo soo baxay muhiimadda ugu weyn ee waalid walba ka fikiraya ama aabbo walba ka fikiraya ama hooyo walba ay ka fikiraysa waxa weeyaan waa ubadka ama caruurta ama idinka sidii loo bari lahaa diinta islaamka ama quraanka inagoo joogna meel ay ka fog yihiin ehelkeeni iyo qaraabadeeni alxamdulilah baan lahay inagu waxaan haysanaa meel aynu wax ku dhigano aynu wax ku barano aynu caruurteena wax ugu dhigno maasha Allah dhammaan waalidiintana waxaan insha Allah ku dardaarayaa inay ubadkooga iyo maxaan ku dhahdaa caruurtoodaba ay quraanka ama diinta islaamka ay mar walba ay la garab taagnaadaan. jaaniskan waxaan kaga faa'iideysanayaa laba nuqdo oo muhiim ah
oo waalid walba ama aabbo walba ama hooyo walba mar walba ku taahdo oy rabto caruurtoodu inay wanaagsanaadaan. qofna ma jecla in ubadkiisu ay dhinac qalada ama meel xun lagu arko. qofna ma rabo inuu caruurtiisu ay noqoto caruur aanan fiicnin. qofna ma rabo in caruurtiisu ay gaalo raacdo. qofna ma rabo in akhlaaqda caruurtiisu ay noqoto akhlaaq aanan fiicnayn. si adaba taasi u timaado ubadku waa sida geedka oo kale, waa geed baxayo oo kale, marba waa la toosiyaa, marba waa qalloocane waa la toosinayaa. taana waa sunnaha ilaahay ee basharka ama dadka bani aadamkuba ay maxaan ku dhahdaa waa tarbiyada waalidku ilmihiisa iyo cilaaqada ka dhaxaysa u wanaajiyo. aabuhu ama hooyadu inay ubadkeeda ama caruurtooda ay wanaajiyaan cilaaqada dhexdooda ka dhaxaysa, ay ka warhayaan meeshay tegayaan, ay ka warhayaan meeshay usoo hoyanayaan, ay ka warhayaan waxay qabanayaan, ay ka warhayaan qur-aankooga, diintooda. karo waqtigana aanu haysano. sidaa daraaddeed waalidiinta oo mar badan in badan naga codsaday ubadku ma helaan waqti badan, macalimiin badan ma helaan. waxaan u bishaareynayna in maanta ay haystaan 3 macalin oo ku filan, ay haystaan waqti intii ka badan, ay haystaan allahuma salli calaa muxamed, inay heli doonaan hadday hingaa tahay oo inta badan dadku ay na weydiiyaan, haddii ay tahay qoraalkii luqadda carabiga oo ah miftaaxa diinta islaamka, iyo hadday tahay maxaan ku dhahdaa subciskii iyo qur-aanka xafidintiisiiba. insha allah macalimiintu iyaga inoo sheegi doona sidai u diyaariyeen iyo sidai maxaan ku dhaha u horumarinayaan madrasada ama dugsiga qur-aanka. haweenba waxaan insha allah u rajeynayaa guul sanadan cusub ee 2020-2021. waxaanan idinlaahay ka faa'iidaysta. waa la nastaan filayaa, maskax fiican baa lala soo noqdo oo nasatay oo fresh ah. wixii hore ee ama ha noqoto games ama ha noqoto wax kaloo lasoo ciyaaray already daad waqtigoodu u dhammaaday. waxa hadda bilaabayna waxa weeyaan waa waqtiga waxbarashada. iskuuladii baa lagu noqonayaa. maxaan ku dhahdaa allahuma salli calaa maxamed, madrasadiiba dib lagu soo noqon. kolley shuruudaha ama arrimaha laga rabo arday walba kolkuu masaajidka yimaado macalinka ayaa inoo sheegi doona. sidii hore way ka duwanaan doontaa insha allah. qof kasta ama gabadh kasta ama wiil kasta waxa laga rabo macalinka inoo sheegi doona hadduu ilaa dhaho. qof walbana haddii uu dabiqi waayo ama uu sameyn waayo sidaa laga rabo ganaaxiisuu leeyahay. ganaaxyaduna way kala duwanaan doonaan. ninbaa nacnac la siin doona, ninbaa computer la siin doona ganaaxiisa. macalinka inoo sheegi doona. aad baan idin salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. ilaahay subxaana watacaala ha ka jazaaysiiyo sheekhana sheekh cabdisamed baraarujinta ku socotay ardayda iyo waalidiintaba. ilaahay subxaana watacaala mahad iskale mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaal suuro geliyay inaan isku nimaadno kulankan barakaysan, iskugu nimaadno meel la isugu yimaado meeshii ugu wanaagsanayd. ilaahay subxaana watacaala meelaha ugu jecel yahay waxa weeyaan masaajid. axabu lbiqaaca ila allahi masaajida wey. ilaahay subxaana watacaala meeluhu jecel yahay. intaa masaajidka aynu fadhino ilmuhu fadhiyaan, waalidiintu fadhido, qof walba masaajidka uu dhex fadhiyaay wuxuu la mid yahay sidii yani qof salaad ku jira ayuu la mid yahay, oo qof maantaba salaad u taagan ayuu la mid yahay. marka masaajidka oo la yimaado oo ilmaha la keeno oo ilmaha in masaajidka ay yimaadaan la baraay waa ajar aad iyo aad u fara badan baa ku jira. wuxuu ka dhawaajiyey sheekhana sheekh cabdisamed walaalkeen tarbiyadda ubadka tarbiyadiisu waa waxa ilaahay subxaanahu watacaala waalidiinta uu weydiinayo. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum mas-uulun wa kullukum mas-uulun can raciyatihi. mid kastaa waxaa la weydiinayaa waa mas-uul kastaana waxaa la weydiinaya raciyadiisa iyo cidda uu mas-uul ka yahay la weydiinaya. ubadka adigoo aada dhashay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ku weydiinayaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku weydiinaya. waxa kaliya lagu weydiinaya waxa weeye waa tarbiyadoodii iyo diinkoodii iyo akhlaaqdoodii baa la weydiinaya. ilmaha oo diinka la baraa ama la baraa xaqa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku leeyahay waxay sababaysaa ilmahaasi inuu noqdo ilmo wanaagsan, aakhiradiisa uu yani wanaajiya, adduunkiisana wanaajiya. ilmaha oo qur-aanka iyo diinka la baraa macnaheedu waxa weeye ilmahan waxaan barayaa maqsadkii adduunka loo keenay, ujeedadii adduunka loo keenay baan barayaa. ilaahayna subxaanahu watacaala taas ayuu ku weydiinayaa.
aakhirana waa kugu anfacaya waalidka ilmaha qur-aanka baraay aakhira ayuu ku anfacaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ilmaha qur-aanka xifdiya ee qur-aanka bartaa labadiisa waalid maalinka qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacaala taaj inuu u xidhayo taaj buu u xidhaya ilaahay subxaanahu watacaala qabriga markaad ku jirto wuu ku anfacaya ilmahaagii diinka aad bartay waxaa ka mid a walaalayaal acmaasha qofka markuu dhinto yacni aan ka go-ayna u soconaysa walad saalixa oo uu ku yani tarbiyad wanaagsan ku tarbiyadeeyey diinkiisa ka fekeray waladkaasi hadduu usoo duceeyo oo u duceeyo yacni qabrigiisa lagu waasicinaya jannadiisa jannada isagoo ku jiraya mansilo sare la geynaya markaasuu odhan yaa rabbi xaggee iga timid markaasaa la odhanaya biistikfaari waladika yani ilmahaagiiyo dembi dhaaf ilaahay kuu weydiiyey ilmahaagiiyo kuu duceeyey ayaad ku yacni jannada meel sare ku gaadhaysaa adduunkana ilaahay wuu kugu anfacayaayo ilmihii aad diinka bartay ee qur-aanka bartay ama yacni ilaahay xaqiisa bartay adigana xaqaaga wuu garanaya lidaalika walaalayaal inaynu ku dadaalno ilmuhu intay yaryar yihiin inaynu barno xaqa ilaahay ku leeyahay si ay u gartaan hadhow xaqa annagu aanu ku leeyahay haddaan waalidiin nahay intaa marka maqsadka maanta u nimid waxa weeyaan dugsiga furitaankiisii dugsiga maanta laga bilaabo wuu furma dugsigeennii dugsiga awlo madrasada nuur baa la yidhaahdaa masjidka maadaama masjid nuur la yidhaahdo madrasada magaceedana waxaa la yidhaahdaa madrasatu nuur baa la yidhaahdaa madrasatu nuur wey magaceedu maxaa le magaca masjid nuur masaajidka magaciisa ma ah madrasaduna waxaa weeye madrasatu nuur wey dugsiga alnuur dugsiga alnuur wey magarat marka insha allahu tacaala dugsiga alnuur maanta laga bilaabo wuu furan yahay sanad cusub baa inoo bilaabmay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inuu si khayr la ilaahay subxana wa tacala inoogu dhameeyo arrinkaasi waa arrinka koobaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta aad waxaan ugu faraxsannahay waxaan ka soo laabanay fasaxii dheeraay dib waxaa lagu soo laabtay dugsigii barakeysnaay iyo macallimiinteena sharafta badnaay waxaan rajaynaynaa inuu dugsigan inuu wax badan ka bedelaan doono sanadihii hore marka macallimiinta aad u mahadsan yihiin waalidiinta aad u mahadsan yihiin ardadan waxaan rajaynaynaa arday ka aflaxda oo kaalimo hore ka noqda insha allahu wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu